السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحي نوتشوغا أو يدابور كاو طبناي قدوميا وحبرشة قبل كمرودشيح اسكدوها وسالة عفماتك قبل كمرودشيح حق حيها وحبرشة قبل كمرودشيح أيام ما أنت نوتشوغا اسكول كينا دوكس كسر الشيخ إبراهيم الشيخ يوسف إكسك علباح ما أنت iyaga inoo martiya waxaan aad ugu faraxsanahay dugsiga gacan libaax inuu yahay dugsiyada gobolka Maroodijeex ugu sareeya xag waxbarasho xag akhlaaq xag idin taasoo ku hambalyeynaya maamulkii walaadiyaad buu wanaagsan yahay waxaan hambalyeynaya maamulaha dugsiga macallimiinta iyo dhammaan ardayda haddii aad aragto meel qurux badan taabiyis qof akhlaaq qurux badan leh ayaa meesha jooga aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin taana waad ku hambalyeynaya waxaa jirta iskuulka shaqooyin baa ka socda waxaa ka mid ah halka hoose ee koonfurta waxaan doonaynaa inaan ka furno laba albaab oo waaweyn oo aad ka baxdaan kana soo gali kartaan waayo waxaan faa'iido baa la dhahdaa halkaana mid kale ka furayna haddii la ka dhigo oo albaabkan isaga ka furayna iskuulada publiga waxaan doonaynaa in la tartamaan iskuulada private-ka laakiin maanta waxaad moodaa inaynu ka horeynaba waayo markaan idin sheego waxaanu xoogga saarnay dugsiyada sare markii hore imika ilaa 4 iskuul oo ka mid ah iskuulada publiga ayaa mustawahoodu wuxuu marayaa maasha Allah dugsiyada hore u maray maaragtay ayaad ka mid tihiin midna aan idinku maaragtay kordhiyo waxa loo baahan yahay adeer waqtiga imtixaanaadka ardayda foorfoorka waxaa inagu badatay arday maxaa ku dhahdaa telefoon soo qaadato meel ka qashto maxay oo loo baahan waxaas imika ma ku sii talagala ardayda foorfoorka waxaynu joognaa imika waxbarashada bilowgeedii waxaynu qaadanaa jabtaradii ugu horeeyay imtixaanaadku inta badan waxay ka yimaadaan jabtarada ugu horeeya kun baan idin sheegaya bayska la qabsada waxa weyn halka ka wad marka dambe kuma dhibayaan laakiin haddii aad dhexda kaga soo booto way ku dhibayaan please ka diyaar garooba waxa la doonayaa ilmuhu bayskiisa waxbarasho inuu dhisnaado intabadeedna uu isagu iswado oo aanu telefoon wadin oo aanay qishid wadin soo garanaysid ayaa loo baahan yahay waxa kaloo ku dardaaraya sanad dugsiyeedka ku marayo wadaagtihiin waxaa jirtay arday foomona oo maxaa ku dhahday aan shahaadooyinkoodii wadanin maamulka waan maaragtay u sheegnay waa inaad shahaadooyinkeedii diyaarsataan oo shahaadada la timaada inaa ka foonka ama inaa tafoonka ah wixii ka dambeeya hadda lama huursanaanayo waa kala bixi doonaa ardayga halkan baasayna foonkiisu joogaya ka kalena eedkiibu ku noqonaya waxaa jira adeer xumad baa jirta xumadaasina waddanka dhan bay maaragtay ka taagan tahay inaad xumadda ka diyaar garowdaan oo silaalisaan ujeedada ugu weyn ee maanta halkan aan u nimid waxa weeyaan waxaad ogtihiin adduunkan aynu joogno maalin walba wax cusub baa ku soo kordha waliba haday noqoto caafimaadkuna waa laf dhabarka bulshada maanta inteenaasi haddii qof quraata madaxu xanuunayo damuu yimaadeen iskuulka waxna mu barteen taas waxayna tusaysaa muhiimadda uu caafimaadkeenu inoo leeyahay waxaad ogtihiin in xilliyadii dhawaa waxaan u maleynayaa markii aad dugsiyada hoose ku jirteen oo inagu dilaacay cudur loo oran jiray COVID-19 ilaahay amarkiisa dad badan baa inaga dhintay dad badan buu inaga dhacay dad badan baa inooga caafimaaday in badanna ilaahay uu inooga badbaadiyay xilligan aynu ku jirno oo sanadkii labaad oo joogto ah waxa inagu dilaacay cudur la yiraahdo dengue fever ama la yiraahdo xumad kaasoo laga qaado kaneecadu nooc kamida oo inaad aragteen in kala mooyaane midmadow tixtix leh oo inta badan maalintii dadka cuntaa iskuulada iyo meelaha dhirta leh iyo xafiisyada intaba waa laga helaa taas weeyaan ta gudbinaysa xumadaas qofku wuxuu yeeshaa calaamado ay ka mid tahay xumad aad u sareysa madax xanuun indhaha gudkooga xanuuna cunto la'aan iyo abateedkoo ka xumaada hadduu rabiidamkeega leeyahay haday xaaladiisu aad u sii xumaatana waxa laga yaabaa inuu dhiig sanka iyo afkaba ka keeno iyo meelaha jirkeeda daloola
waxaan u baahannahay haddaba xumadaasi wax dawaa ma leh dawo uma hayno cudurrada aan dawada loo hayninna waxa weeyaan in laga hortago waxa quraatee aynu kaga badbaadi karaynaa waa inaynu ka hortagno waxaan u baahannahay inaad message-kaas iyo fariintaa maanta halkan aad ka qaadaan idinkuna aad maqashaan guryaheena iyo dadkeena aynu jecelnahay qof walbaaba hooyo iyo aab iyo eeddo iyo habaryar iyo ayeeyo awoogu leeyahay dadka u nuguli waa dadka waaweyn iyo caruurta iyo dhallinyaradaba waxaan u baahannahay markaa inaad idinkuna aad ka digtoonaataan oo sidaad uga digtoonaanaysaan waa ta koowaade inaad xidhataan waxyaalo adag sida sharabaadada oo kale inaydaan ka tegin waayo halka ugu badan ay dadka ka cuntaa waa cagaha iyo gacmaha marka habluhu inta badan waxay xidhan yihiin xijaabo gacmahooga way qariyaanba laakiin inamadu inay gacmo dheere xidhaan oo shaadho gacmo dhaadheer aad soo xidhataan haddii ilaahay idhaahdo xaafadahana in laga buufiyo ama biifbaaf ha la isticmaalo ama wax kale ha la isticmaalo taangiyada guryaha inoo yaala inaad dabooshaan waa meelaha ay ku dhalato kaneecadu taayirada meelaha yaala biyuhu ku hadhaan inaad ka daadisaan fidhiqooyinka iyo daasadaha yareere biyuhu ku hadhaan inaad ka daadisaan anigu waxaan ahay xogayaha fulinta gobolka Maroodi Jeex maanta waxay ii leedahay sumad gaar ah farxad gaar ah waa iskuulka dhigan jiray waxaan ardaydii ugu horeysay iskuulka ka qalin jabisay ee ka baxday waxaan leeyahay iskuulkani taariikh ku suntan yahay qalankana harbuule ayuu yahay waxaan ku horeysiin doonaa insha Allah tacaala waxa jira maanta oo inoogu weyn xumadda ku soo korodhay dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolkeena Maroodi Jeex sidoo inoogu wacyigeliyay oo shuruudaha laga hortagayo iyo sida looga badbaadayo Ilaahay wax badbaadiyo Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo sheegay دكتوركي سدوها هرمونات عافماتكو وحنا دلية دمانتي وين القاعدتان وعيجلنتاس جالسيسانا دوسكينا حافظينا إهلكينا يدقمدينا بقى وحكلون يدقوا بورينا يدقوا عتكينا قروح ذا يقيمة هينمانتا أفردنا وحيكون فردنا إلى علمتا إلى صعدك عتكينت النبتقلية الأمن والإيمان نبتقلية إلى دلالسان ونبتجلده إلى طعي تردحات إياه البولها قالوا كينا جمهورية الصوماليلاند هبيني معلومة إنه هالسنة وحنا كبرنا عافمات كبيرة تجنا كوجا عسنا جودهم هرمر كوجانو يكسجين النورات بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك واحد كتيرا حمد والن وفيروس كانوا كم ذا كينان وفيروس كان اللي هذا دانق فيفر قال اللي هذا واحد كتا كان يعوي كقارب كينا وبعدين يكون عسى ضد كين يكون عسى برشاد عيوب ويكون عسى اللي سكوا يجريو وخطرت هذا السكشيغو ودبعتنا كنت اللي سكشيغو ويديك اللي يدي شيغو ويديك اللي برشاد يكون إنسان يغني يكوميونتي ينور مقوس كسر تصي فرنتي وفرنتي جوا نفسن هالك ساكن لو تشوجو وحنا قادرين نسحب وعيقرين تالي السيء يبحث عافمات كي يبحث وحبرشين السيء وسألت الوحبرشين واحد السلوك ده تهاي إن أرضينا الإلالية بتقبكوا ذا عافمات إلا إلالية بتقبكوا ذا تيجان يصيروا كل إلا السيء علوم وحبرشوا ويكون برتان نرشة يا قوتها يا بيادة يكون الله وحاسويدين مدن قيلانات أنت عليك ساكن أنت شو مسؤولين لو تشوفوا علاسك عيلها وحدرين يا علاسك حروك اللي هي ويوتشي فام ولا لا بدنا برشدنا أي أقول أنت تدفع بدنا برشدنا يسووا خيطة تولينا هاي يقفكوا أنود جرينا على مدها وليه هاي فارس كذا مركب على ذيك بهاي إن نقوليها بوفينو كلاسيدنا بوفينو سكول كنا إنه بوفينو ديجان كنا سنة وقلنا ديجان بتقبقوا إنه فهموا كنا يو marka waxa dareemaysaa xanuunka inta leeg ee qofka dhiiga ku furaya bilari ka sameeyay naasir bilari ama dibnaha ka keenaya inuu yahay xanuun aad u culus oo fayraskiisa leh xumadu markasta oo ay xoog noqotana meesha waxa ka baxaya xijirowga qofku waxa uu dhifo problemaya wax loo yaqaan hemophilia waxaan idin rajaynayaa inaad qaadataan fariintan waxaan idin ku dhiirigelinayaa inaad ka faa'iidaysataan waqtigiina ardayda halkan fadhiyo waxaan rajaynayaa mustaqbal wanaagsan وهذا الله همبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.